haatan waxaa fadhiya garyaqaanka guud ee golaha wakiilada Somaliland garyaqaan haddaan wax kaa weydiiyo bal qaab nooceeya ayaa loo doortaa shirguddoonka golaha wakiilada horta intaanan su'aashaada ka jawaabin waxaan doonayaa ugu horeyn inaan halkan uga hambaliyeeyo dhammaan musharaxiintii ku guuleystay natiijadii doorashadii qabsoontay 31 May dhammaantood waan hambaliyeynayaa hadday yihiin gole deegaan iyo hadday yihiin golaha wakiilada 28 xubnood ee ku guuleystay doorashadii dhawaan ka qabsoontay dhammaan gobolada dalka waxaana waxaan aad u sii hambaliyeynayaa 28 xildhibaan ee golaha wakiilada ku guuleystay runtii aad arkayso inay yihiin niman dhalinyaro ah oo aqoon-yahana oo runtii aad u firfircoon oo aynu ka filayno runtii inay wax weyn firfircooni aqoon karti iyo waaya aragnimada ka muuqata inay runtii ku soo kordhin doonaan golaha wakiilada runtiina hawlo waaweyn way hor yaalaan oo ay ka mid tahay maadaama golaha wakiiladu yahay xeer dejiyihii yahay ama sharci dejintii dalka uu yahay golihii sharci dejinta runtii inay xeerar runtii taabanaya nolosha dadka inay runtii soo kordhin doonaan oo hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay deegaan hadday tahay dhammaan xeerarka kale wax ka tara dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalahaba runtii waa waxyaabaha runtii aynu tabayno ee dalkuna u baahan yahay waxaan aaminsanahay in wax weyn ay ku soo kordhin doonaan 28 xildhibaan ee dhalinyarada ah ee maxay ahayd toole ku guuleystay doorashadii dhaweyd waxaana la ilaahay xilka qaran ee aad qaadeen ha idinku asturo runtii golaha wakiiladu dee waa gole dastuuriya oo awoodihiisu dee waxay ku cad yihiin dastuurka haddaan usoo noqdo su-aashaada waxaa kaloo leeyahay goluhu xeer hoosaadkaas oo uu jideeyey dastuurku in golaha wakiiladu uu yeesho xeer hoosaadkoodisna wuxuu qeexaa qaabka ay shirguddoonka u doortaan marka fadhiga ugu horeeya caadiyan marka ugu horeysa dee waa la dhaariyaa khudbaddii madaxweynaha kadibna xubinta ugu daada weyn ayaa jeerinka la wareegta kadibna waxaa bilaaba isdoorashadii ama xubnihii musharaxiinta doonayay inay noqdaan shirguddoonka marka dee nidaamkeenuna axsaab buu ku dhisan yahay kolley dadka la dooranaya waxay ka imanayaanuun axsaabtaa siyaasadda ee ku guuleysatay xubnaha ugu codka bata uunbaa noqon doona shirguddoonka loo cumaamadi doono inay hogaamiyaan golaha 28 xubnood ee la doortay marka qaab ahaan waa sidaa weeyaan runtii maalinta dee lagu dhawaaqo 30 cisho gudahood ayuu madaxweynuhu cayimi doonaa maalinta ay ka qabsoomi doonto maalinta ay noqon doonto maalinta dee fadhiga ugu horeeya ee dhacaya marka qaab ahaan sharciyan dee waa sidaa weeyaan qaabka ay isku doortaan fadhiga ugu horeeya goortuu qabsoomayo iyo guud ahaanba dee iyo dhaarinta maalinta dee la dhaarinayo oo ay noqon doonto dhaarta wixii ka dambeeyana inay dee shaqa maalmeedkoodii caadiga ee golaha ay gutaan way garyaqaan hadday dhacdo inay iskaashadaan labada xisbi ee mucaaridka oo imika ugu cod badan qaab nooceeya ayay isku kaashan karaan hadday doonayaan inay doortaan shirguddoonka runtii sideedaba dee sidaan kuu sheegay fadhiga ugu horeeya golaha wakiilada marka ay xubinta dee ugu daada weyn la wareegto shirguddoonka waxaa la weydiin doonaa siifiyada iyo inay shuruudaha buuxiyeen xubnaha doonaya inay u tartamaan musharaxiinta shirguddoonka oo ka kooban 3 boosishan waa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad marka xubnaha ugu codka bata uunbaa noqon doonaa dee 3 xubnood ee loogu cumaamadi doono inay noqdaan shirguddoonka golaha hagi doona runtii qaab ahaan iyo sharci ahaan qaabkaas bay dee u dhacdaa dee siyaasadduna sideedaba waxa weeyaan codka waa la isweydiistaa waa wax dee natural horena way u dhacday marka waxaan filayaa 3 xubnood ee ugu codka bata un ayaa noqon doona kuwa loo cumaamadi doono inay noqdaan shirguddoonka hagi doona muddooyinka soo socda golaha wakiilada haddii la yidhaa waxaa jirtay in dad musharaxiin ay soo baxeen dad badan baa awoodaha golaha wakiilada ninbasi uga hadlayay intii ay sharaxnaayeen bal waxaad inoo qeexdaa awoodda golaha wakiiladu leeyahay
ladu runtii sida uu dastuurku sheegayo waa golaha xeerdejinta dalka oo xeerdejinta koowaad ee dalka weey awoodahoogu waxa weeyaan horta des caadiyan ninka xildhibaankii waa marna waa MP oo waa xeerdejin marna waa siyaasi maadaama uu xisbi ka soo baxay waa qof siyaasi oo hadana loo meekana marka labada xil ee waaweynba way sitaan awoodahooga dastuuriga waxa weeyaan curinta iyo ansixinta xeerarka dalka iyo ansixinta odoroska miisaaniyadda qaranka waxa kale awood u leeyihiin ansixinta mas'uuliyiinta qaranka waxa kale awood u leeyihiin la xisaabtanka iyo dabagalka xukuumadda ay awood u leeyihiin waxa kale awood u leeyihiin ansixinta xisaab xidhka marka dhammaan awoodahaas oo dhan bay leeyihiin awoodahaasna runtii goluhu haddaad sidaad ogtiinba go'aamada wuxuu ku gaadhaa si wada jira caasatiin buu ku gaadhaa hadday tahay guddi hadday tahay golo wakiilaba marka iyo wada shaqayn buu runtii goluhu ku gaadhaa guddiyuu leeyahay marka guddiyaduna runtii waa mashiinka golaha dhaqaajiya weeyaan ee ay marka hore hawlaha kala duwan ee goloweynaha imanaya laga soo tashiilo ama lagu soo lafaguro marka qaab ahaan iyo nidaam ahaanba goluhu dee qaabkaas buu awoodihiisa iyo nidaamkiisuba ay u dhisan yihiin ismaan axmed ismaan saab TV hargeysa